samaystay miyay cidi soo siisay may oo suuray dushayde miyaan sahal ku soo qaaday may isna siistay dhuuxiyo lafteesi biqumaan keenin ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh marka labaadna anigoo ku hadlaya afka maamulka jaamacadda Armas waxa farxad weyn noo ah inaanu halkan ku soo dhaweyno mas'uuliyiin ka socota komishanka tacliinta sare iyadoo ujeedada ay noo soo booqdeen iyo kulanka halkan aanu maanta ku yeelanana ay daaran tahay u diyaar garowga maalinta qaran ee 18 May oo dhammaanba qaran ahaan aynu ku jirno diyaar garowga aynu u diyaar garoweyno inaynu si weyn u xusno maadaama ay tahay maalin qaran ahaan inagu weyn qiimo weyn agteena ku leh saddex midab lahayga kulan samada guudkeeda 18 May markaan suuray ciidayda kuma helin sabaale nafban siistay calankayga waxaan si guud horta u salaaminaa maamulka jaamacadda Armas aniga oo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada xuska 18 May ee komishanka tacliinta sare waxaan kormeer ku maraynaa jaamacadaha qayb ka mid ah jaamacadaha magaalada Hargeysa oo la qiimeynayo oo la eegayo sida ugu diyaar garoobeen ka qaybgalka iyo ka qayb qaadashada haddii la ka dhigo xuska 18 May iyadoo oo runtii aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno jaamacadda nimanka aanu joogno jaamacadda Armas oo maamul ahaan dhismo ahaan iyo arday ahaanba si qurux badan ugu diyaar garoobay 18 baati meesara kooqata magacaygu waa Akram Maxamed Maxamuud waxaan ahay ardayda jaamacadda Armas University oo maanta aanu dabaaldegno xuska qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay Happy 18 May dhammaan ummadda Soomaaliland waxa leh Happy 18 May waxaan oranayaa rabow cadowgii jabaayay ha rabow cadowgii ay ha rabow i'tiraaf laayay ha kumeel mara calanka Soomaaliland rabow cimriga jiray ha rabow cadowgii jabaayay ha rabow i'tiraaf laayay ha Armas Happy 18 May